bismillahi raxmaan raxiim xiisadeenii ama cashirkeenii hore anagii shinili waxaanu ku qaadanaynaa aan u sameynaynaa qaab aan u sameeyey qoladan oo kale qaab yaroo qurxoon aad u sameyn karaysaa oo diiday kadiyare qaybtan oo kale waa sb baan ku sameeyey markaa safxa shaksiya qofka informationkiisii sida kan oo kale ad u sameyn karaysaa sida kaasoo kale ad u sameyn karaysaa sawir image baad soo dhigi karaysaa qofka wuxuu soo saaraya qofka magaciisii emailkiisii emailkiisii taariikhdiis diiwaan geliyey hadduu baahanya markaa informationkiisi inuu bedelana oo saas oo kale ku bedelayaa halkan waxaa soo dhigaysaa kelmadda ah hadduu maamul iyo darajadu yahay maamul iyo tiimkaan sameyneyn oo kale ayaad soo dhigaysaa markaad ka baxaysidna tasjiil khuruuj ay markaad sameynaysaa ama logout saasuu markaa uga baxay oo kugu celiy markaa logan pagekii taasoo kale anu sameyn karaynaa haddaba imika waxaan gelaynaa haddaba qofku informationkiisii markuu yaallo halkaa yaallo wuxuu u baahan yahay tusaale ahaan oo kale emailka inuu bedelo ayaan u baahannahay waxaanu bedeli karayn usernameka iyo registration dateka iyo user utilityga saddexa midna isagu bedeli karayo guddoomiyaha oo keliya ayaa ka bedelaya guddoomiyaha oo keliya ayaaba intaa ka bedeli karaya oo maamul iyo waxaaba kasoo dhiganay dadka iyo xubin iyo ka tuura meesha gebigeeda waniga doodan qaadan doona insha allahu taala hadduu ilaahay subxaana watacaala amriga siiyo aanu siiyo imika waxaan u baahannahay qofkan awood u siino inuu bedeli karo emailkiisa waxaan leenahay haddaba halkan u hooseysa ayaynu kusoo daraynaa tr cusub hal t d baan laakiin uga baahanay halkaa t d waa colspan waxaana siinaynaa laba waxaan leenahay laba colon baa isku furaysaa input baad soo dhex dhigaysaa ama iskala fiinba inputkii sign upka inaa soo qaad inputkii sign upka wuxuu ahaa kaasuu ahaa submitkaasaan u baahannahay laakiin halkan xabad xabad ka sii dhig centerkeeda inaa soo qaad xagaran keensanaynaa marka halkan waxaan leenahay intaa markuu soo saaro waan leenahay nameka fadhinka submit waxaan leenahay bixinayna halkan change user information ama email leenahay haddaba halkan wadan usoo baxaynaa waxaan leenahay if bowska haddii u taabto bowska la yidhaahdo submit waxaad ii sameynaysaa waxaad inoo sameynaysaa eco cusub baan sameynaynaa baan leenahay jadwal cusub intaa gebigeeda inoo soo format inoo soo centerka horta hoose inoo soo dhig centerkan soo qaad centerka kaa soo geli intaa gebigeedaba inoo soo qaad leeyahay intaba halkan inoo keen laakiin xagga yihiin halkani
usernameka waxaan sameynaa input tabkiisa waxa weeyaan waa text my email namekiisana waa user email placeholderkiisuna placeholderkiisu wuxuu noqonayaa user email value ma baahnin value ma baahnin value intay nagu daa waxaa kale iska masax waxaad sameynaysaa haddii badinka submit uu gujiyo fadlan inta soo keyword garay save on inuu soo refresh garay markan change user nidhaahno change user email waxaad arkaysa haddana inuu soo sameeyo user name haddaan bedelo user name user email waxaan u baahanay haddana ku celino confirm ku siino mar labaad confirm user email soo qaado haddana inoo soo qaado halkan inoo soo dhexli placeholdersa soo refresh garay imika ma arkaysid imika sida darkaysa ma arkaysid imika waxaan leenahay halkan border banu sameynayna jadwalkan border banu sameynayna jadwalkan border banu sameynayna border sama banu sameynayna sami kala ogaano doonaysa haddana hoos usii dego weliba saanay isugu dhegin hagaan br laba jeero br samey save soo dalla haddana saas unka uga dhigay kaa markan user change user email ilaanana kii hoose iyo haddana gooni usoo dhigay kii hoose user email imika la soo keenay maaha god maaha kani input maaha waxa kan keenaya waxa weeyaan waa sil baligan iyo silsan aan ka dhignay lineka iyo fork ka dhignay inaana ku celi markaysa markaynu sida caadiga yahay okay waxaan u baahanay haddaba imika qofka marku halkan ku qoro usernamekii waxaa leeyahay user emailkii haddaba mar labaad ku celiyo inuu markaa sameeyo change user email markaana ku sameeyo taas haddaba si aan u xaqiijino waxaan tegaynaa haddana hoosaan tegaynaa imika waxaan leenahay if cusub baan sameynaynaa if post halkan submit waxaan leenahay update user info ama email aynu bixinay kaas submitkaas badinkaas waxaan leenahay haddii badinka uu shaqeynayo waxaan leedahay if waxaan kala bixinay user email iyo confirm halkan soo qaa
hadduu kaasi shaqaynayo waxaan leenahay user email saas ku daa equal MySQL will scale string soo qaadaynaa emailka halkaa deji post post user email confirm aan leenahay waxaan diidanahay sax weeyaan confirm user email isna wuxuu leeyahay ama uu leeyahay inuu soo qaad confirm spaceka customerka if haddaba if user waxaan leenahay intaa marka soo sameysid if user emails equal or con user is equal haddii markaa maran yahay weeyaan haddii uu maran yahay waxayna taabacaysaa on the equal class error waxayna taabacaysaa ku qoraysa fadlan buuxi xogta dhammaan is haddii kale else if haddii ay labadaasiba if else kaasiba leenahay confirmku not equal la soco haddaan not equal user emailka ahayn godka labaad godka koobaad ee emailka lagu qorayaa haddaan lageyn ka hore waxaad ii sameynaysaa marka equal saas oo kale ayaa keenaysaa dib fadlan hubi si sax ah u hubi xogta aad gelisay way haddii intaa baan ahayn haddaba waxaan sameynaa inaa soo qaan tijaabeynaa bismillah user email baa leenahay halkan wuxuu fadlan buuxi xogta dhammaan soo marki fadlan buuxi xogta dhammaan buu yidhi laakiin sababtu hoosta u keenay oo kana qariyo waa maxay waxa weeyaan qaybtan ayaan hoosta qaybtan reerkiisi ayaan hoosta dusha soo saarnaa dushiisana soo saarnaa cut ayaa selected isa selected change user email
user email weli wuu qariyey waxaan u baahanahay in haddana centerka ku xig xageedkan ku furno center centerkana user email change okay hadda buu xigta banaan buu leeyahay halkan hadda waxaa leenahay haddaa labadaas mid baanu jirin wels baan leenahay haddii labadaas mid baanu jirin waxaan leenahay update waxaan sameynaynaa function cusub waxaan sameynaynaa baan leeyahay bari cusub add update user info waan u bixinay by SQL query weeyaankani waxaan leenahay update member set baan leenahay weliba set waxaan leenahay hadana soo qaadaysaa user emailka markaa user email equal isaga wuxuu la ekaanayaa kaasuu la ekaanayaa waxaan usii sameynaynaa where username equal leeyahay usernamekana wuxuu inoo leekaa markaa wuxuu inoo leekaa usernameka kaasaan soo qaadayna variablekaas waxaan leenahay udeji if haddaan ku guuleysana haddaba update infoga haddaan ku guuleysano queryga haddaan ku guuleysanay markaa fariin baad inoo soo dhigaysaa fariintaasoo sheegaysa equal dir classkeedi waxaan okay classkeedi waa okay wasawaa waxaan u baahanahay haddaba inaan sameyno haddana markuu sareysa hadaya info ama waxda inoo soo qaataaba qaybtiisa inaadka sanadkiisa uma joogno waxaan doonanaynaa tii sare intaasaan u baahannahay waxaan leenahay halkana zero keli index maaha profile baan doonaynaa profile page la yidhaahdo soo qaatay kan soo qaatay tegana hierarchy header intaas inoo soo intaas inoo soo taabo profile page
choose an email waad ku guuleysatay hadda garyara tiri ahaa aan sugayna haddaba xaggan wuxuu diiday sida arkaysid wuxuu diiday informationkii buu naga diiday halkan waan ka saaraynaa gebigeedaba waxaad tiraahdaa inoo haki yahay xogtayna haddaba maxamuud informationkii inoo hagaajiyey email ahaaday info@gmail.com haddii na baahanay markaan inaan sii hagaajino halkan waxaan nahay haga yahay update active value change halkaasaan uga baahanay inay idhaahno markaa update info haddana waan bedelaynaa in waxaan doonaa ku hayno sidiisi information info@gmail.com career@gmail.com doonaa ku hayno waxaan leenahay halkaa career@gmail.com office halkan waxa weeyaan info@gmail.com update baan leenahay update info inoo soo dalacay guuleysatay weli laakiin weli inoo soo dhigay halkan sababto waxa weeyaan listen markaa inoo bedelaa markaas inoo naga dhigay gmail.com halkan waxaanu ka dhigaynaa sidii hore saasaan kusoo qaadanaa waxaan leenahay info ku soo celi save garay update garay markaa waxaa soo dhigay info@gmail.com saasaan qaybtaan ugu guuleysanay saasi ka faa'iidaysan. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi